xildhibaan Axmed Muuse Obsiye Axmed Gacan oo ka tirsan xildhibaanada golaha guurtida Soomaaliland oo maanta qayb ka mid ah warbaahinta kula hadlayay magaalada Hargeysa ayaa waxa uu si faahfaahsan uga hadlay isbeddelka siyaasadeed ee ka dhacay maamul goboleedka Puntland iyo madaxda cusub ee halkaasi qabsaday iyo siyaasadooda ku aadan dhinaca Soomaaliland iyo sidoo kale saameynta amni ee ay ku yeelan karaan dawladda Soomaaliland. xildhibaan Axmed Muuse Obsiye Axmed Gacan oo arrinkaasi iyo arrimo kale ka hadlaya waxa hadaladiisii kamid ahaa. bariga waxay ka weydiisay bari waxba inaga soo fool yeelan kara sababtay tahay labada nin la doortay nin baa ahaan jiray ciidanka sanam ciidanka Soomaaliland ahaana markii dambana noqday qoladii ku dagaalamaysay daaroodiyada kalshaale markuu yimi wareegay nin baa ahaa waa wasiir ku xigeenka markaad arrintaas dhibaatadeeda ilaa caarana wali looma yeedhin lamana meeleen caaran ninkan imaka qabsaday Puntland waa nin cadadag ninkii hore uu ka adadag waanu ka rakabrooy kaasuna waa nin yaqaan Soomaaliland oo u dhashay halka dhibaatadeeda ka soo socota saddex xaaladood uga soo socota marka hore ciidanku ahaa jiro waa nin wax yaqaan tiknikana uu haysta labadii beelood ee dagaalamay laascaanood ku dagaalamayna ciidamadoodii lama qaramayn 20 tiknikana way haysta isaaquna wuu kala furan yahay qoladan caloosha dhexe way kala furanta isma haysato waa beelo wixii aynu soo dagaalanayna waynu garan weyna waxa alla waxay ahaayeen maynu garan raggeenu baynu meesha ku leeyna wax kale inuu ka dagaalanay ma jirto laba nin oo saraakiil oo SNM ka soo hadhayna ninna waa madaxweyne ninna waa wasiir daakhili wanimankii maanta dadka heshiisiin la taasuna meesha way ka maqan Puntland waa tii la isugu yimaashay lagu wada heshiiyay Soomaaliyana soo ka hadhimayso Soomaaliland qoladiina dhalinyaradii waxba waruma haysan Soomaaliya ka hadhimayso Soomaaliland marnaba ka hadhimayso dagaal iyo dood iyo wax kastaba inay ku soo qabataa doonaysa sababtii baynu noqonay milix macaan oo meesha isdiibtay waxna meel dhiganin ilaa maantana kama inaan tabaabashaysa wax koonfur inaga yaalo aynu ugu kacnaana ma jiraan tuhunkan la isku tuhmayaana waa beeno reerka lagu tuhmayaa maanta koonfur ugu liita madaxweynaha cid kaga dhadhaway maanta ma jirto hadduu isagu soo dhaweynayo hadduu fogeynayaba cid kaga dhadhaway ma jirto cid maanta Soomaaliland oo halka dabada ku haysa ma jirto laakiin sidii la inoo qaban lahaa waa la wadaa isku mana xidhnin ama dagaal baa la inagu qabanaya ama inaga gudaheena inta la kala fadhiyo la burburiyo yaa la inagu qabanaya wixii dhalinyaro ahaana tagaba xamar bay maanta ka buuxaan wax jabhad loo qorto wax ciidan lagu beeriyo wax shaqo kale la siiyo xaraka markay dhalinyaradii weyday halkaas ay u yaacdo taasina waa kelmad baro marka Puntland maanta hadday dhisanto inaga mashaakil bayna kaga soo kulmaayo laascaanoodna inama ogola xoog baynu ku haynaa laascaanood laakiin inama ogola marka ina bixisaa ka laba xaalad la gudbo labada xaalad waxa weeye horta isaaq inuu heshiisiyo waxa ku heshiisiin laaw keeno way halkaasna ciidan yar buu geeyay tukarra marka dhaafto ila garoowe meeshiisa waa banaan waana qanaar dalka meel ciidan ku dhufays ku gal jirmayso hadii tafarraqba halka loo dhaafo way tukarraq waa dhufays ka hadii ama inagu aynu xagga uga baxnaa ama xaggan leeyno ka soo saarana leeyna arki maayo marka waxaan ku soo koobaya halka wax weyn kaga soo socda Soomaaliya inaga ma xariina Soomaaliland way daba socotaa nimcada halkan ay taala ee wax indale oo inoo jahayeen laan teenu jaamale haday teenu jahatay baynu malayn leh teenu ma waqooyi u socota ma koonfur bay u socotaa ma halkeeday ku engegsanaysaa ma garanayno
habeenkaa caawa waxaan ku faaliya Soomaaliland meesha u socoto ma garanayo raggii u kiciraana waa idinka annaga idinka horeynayna idin jahayn kari weyne taariikh waanu idinku jahayn laakiin maamulkeeni maanta meel aynu jahayn marka runta laga hadlayo isagay maanta la gudboon tahay inuu ka gaashaan dhigto halka saddex namarna oo sameeyo halkan waa ogtiin Samaroon waxay doonaysaa saami qaybsi xaq way u leedahay dhulbahanta wuxuu leeyahay tiicali qalab hal rumeeyo distoorkana ha noo furo waayahay markaad burcod Hargeysa galbeedkeeda ka bilowday ilaa Ceerigaamana dadka ku nool badankiisu waxbuu saluugaya waa majority-giisa qaarna wax saluugayna way jiraan laakiin majority ahaan waxbay saluugayaan inta inuu haduu maanta heshiisiyo oo u jaheeyo Soomaaliland waa naajix haddii se inta uu jahayn waayo heshiisiin kari waayo Soomaaliland anigu waxaan leeyahay Ilaahay inuu naxariisto